gabadhii waxay u hanjabtay booskii oo ay waardiye u haysato iyadoo leh maanta ma rabo inaan ninkan shirkadda ku arko. hooyadii oo xanaaqsan ayaa soo degtay iyadoo leh ituso. aaway waardiyahaas ku dhiiraday inuu gabadhayda joojiyo. maanta kama tegayo. laakiin markii ay u soo dhowaatay ninka dharka waardiyaha xiran naxdin ayay cagaha dhulka u dhigi weyday. waxay aragtay inuu yahay mulkiilihii shirkadda booska. waxay tidhi iyadoo gariiraysa boos. ma adiga samaynaya waxaan oo dhan. booskii ayaa si caro leh u yidhi waxaan kuugu shaqaalaysiiyey inaad tahay haweenay weyn oo shirkadda iyo shaqaalaha daryeeli karta. laakiin adigu waxaad shaqaalaysiisaa qaraabadaada oo dadka garaaca gabadhaadana maamule ayaad ka dhigtay. boos kuma lihidin shirkaddayda. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi labadiinuba waad cayrisan tihiin. hooyadii ayaa tidhi sideed noo cayrin kartaa. haddaan tago shirkaddu way burburaysaa. booskii wuxuu ugu jawaabay hadday burburayso ha burburto laakiin dad idinka oo kale ah lama shaqayn karo. baxa halkan. fariinta gabagabada. haddaba walaal 10 eber ka mid ah imisa ayaad siin lahayd go'aanka uu qaatay booska. fikirkaaga noogu reeb qaybta faallada hana iloobin inaad follow dhahdo cinwaanka. mahadsanid.